waxaan joognaa maanta degmada Bohol ee gobolka Sool oo ay ka bilaabantay diiwaangelintii Somaliland ee kaar qaadashada diiwaangelintaas oo soconaysa muddo 15 cisho sanduuq oolayo waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Bohol iyo deegaamadan dhow oo dhan inay dhammaan ka qayb qaataan kaar qaadashada lana diiwaangeliyo dadka wixii aan kaar lahayn kaar hore qaadan halkaas sidaas oo kale komishanka qaranka waxaan u sheegaynaa deegaanka kan runtii marka hore si fiican buu qaatay kaarka dad badan baa ka qaatay laakiin waxa jirta reer miigii ama reer guuraagi oo dhan kaarka waa ka lumay waxa jira boqolaal ama kubaan kun dad ah oo u baahan kaarka maxay la yiraahdaa bedelka ah oo kaar bedel laga doorayo marka waxaan leenahay sanduuqii kaar bedelka in la keeno degmada la soo dhigo oo maxay ahayd deegaanka kan si looga diiwaan geliyo dadka oo dadka kaar bedelka ah ay u helaan kaarka ama kaarka kalumay ay u helaan ilaa dad 600 gaaraya ayaan diiwaan gelinay dadkaas oo qaybina ay yihiin dad ay kalumayeen qaar ay yihiin dad meel kale ka soo guuray oo u baahan kaar bedel dadkaas oo u baahan in loo bedelo kaarka qaybina ay yihiin dad soo guuray oo meel kale ka soo guuray oo soo degay degmada qaar ay yihiin dad kaar kalumeen oo aad iyo aad waliba wax u badan dadka soo reer guuraaga ah kaar kalumeen marka waxaan leeyahay komishanka qaranka in la keeno kaarkii sanduuqii ka shaqeynayay kaarka lumay si loo helo dadka kaarka u helaan dadweynahan waxaan ugu baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba inay ka qayb qaataan kaar qaadashada oo ay qaataan iyaga marka halkaas ay khiyaarkooda ku xiran yahay halkaas ay ku xiran tahay awoodoodu Somaliland waxay uga guurtay sistamyada hore si samcad ah qofku wuxuu doonayo iyo wuxuu diidayo wuxuu ku dhalin karaa waxa weeye codkiisa qof walba waxa leeyahay saad maalinta doorashada qofka doonaysan aad u soo saarto qofka diidaysana aad yani u diido waa inaad codkaaga muujiso aad qaadato kaarka